subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba idaacadeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka sirta wararka iyo calanka news waana subaxnimo talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay 11 Janaayo sanadka cusub ee 2022 idaacadeena saakeena qodobada aad ku daawo doontaan waxa qayb ka noqon doona nuxurka khudbadii xalay uu jeediyay madaxweyne Farmaajo muxuu khudbadiisa kaga hadlay muxuu ka yiri shirkii soo ilaaday amniga doorashooyinka iyo qorshaha xiga ee khilaafka asaga iyo Roble iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub nuxurka khudbadii Farmaajo xalay uu jeediyay ayaan warka idinkugu sharaxi doonaa warbixinadeena kale waxa qayb ka noqon doona saaxiibayaal mucaaradka waxay sheegeen inay diyaariyeen ciidanka badbaado qaran laba oo ciidan loogu talagalay inay ilaaliyaan oo ay difaacaan xubnaha banaanbaxa sameynaya maalinta Khamiista cadada ciidamadan iyo halka lagu diyaarinayo iyo macluumaadka ciidamada cusub ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxa kaloo qaybka maxkamadda militariga Saakay oo talaada xukun dil ayuu ku fulisay askari dil geystay kaasoo tiirka la soo taagay qaabka u dhacay xukunka dilka iyo macluumaadka cusub ayaan ku soo gudbin doonaa wiilka soo goostay askarta loo qaaday Eritrea oo xog la yaab leh soo bandhigay waa sidee xaaladda dhalinyarada ee ku nool wadankaasi Eritrea tababarhaan loogu qaaday xogta wiilkan uu soo bandhigay iyo wareysi laga qaaday ayaan idin soo gudbin doonaa xaaladda magaalada Muqdisho iyo waliba sidoo kale macluumaadka arrimaha doorashooyinka ayaa qayb ka qodobadan iyo kuba kale ayaa ku daawo doontaan idaacadeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xidhay channelkeena subscribe inoo dheggan baleelkana taabasay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo soo dhawaada saaxiibayaal hagaag aan ku bilaabay warbixinada ugu horeeya nuxurka khudbadii xalay uu jeediyay madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Farmaajo ayaan ku bilaabi doonaa Farmaajo ayaa xalay jeediyay khudbad la wada sugayo nuxurkeeduna ku aadan xaaladda dalka iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka Farmaajo khudbadiisa waxa la islahaa inta badan wuxuu ku weerari doonaa ra'iisul wasaare Roble xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira khilaafka asaga iyo ra'iisul wasaarihiisa laakiin khudbadiisa xalay uu jeediyay dhamaanba way ka duunayd marka loo eego waxaana ka muuqanaya bisaal siyaasadeed oo Farmaajo muujiyay marka loo eego nuxurka khudbadii xalay uu sii daayay Farmaajo ayaa xalay jeediyay khudbad lama filaan ah wuxuuna soo hadal qaaday arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka wuxuu si toos ah u soo hadal qaaday qabka ololaha doorasho asagoo sharaxay hanaanka ay ku shaqeyso dawladdiisa muddadii ay joogtay dhismaha ciidamada ayuu ku faanay iyo waxyaabo kale sidoo kale Farmaajo ayaa soo dhaweeyay heshiiskii cusub ee doorashooyinka laga gaaray shirka golaha wada tashiga qaranka kaasoo maalin ka hor Muqdisho lagu soo gabagabay asagoo madaxdan ugu baaqay inay ku dhaqmaan heshiiska la gaaray Farmaajo wuxuu khudbadiisa ku qiray ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada inay mas'uul ka yihiin qabsoomida doorashada Soomaaliya Farmaajo inta badan soo khudbadiisa waxa uu kaga warbixiyay dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya ciidamada qalabka sida asagoo bogaadiyay sida ay dawladdiisa u dhiseen ciidanka difaaca ee xoogga dalka awood muuqata leh wuxuu sidoo kale khudbadiisa ku soo hadal qaaday dadaalada iyo qorshaha hirgelinta dib u dhiska ciidamada qalabka sida taasoo horseeday dalkeena uu yeesho ciidamo xoog leh oo military sida uu yiri Farmaajo ayaa sidoo kale ka warbixiyay hanaanka siyaasadeed arrimaha dibadda ee dalka wuxuu sheegay in dawladdiisa ay ku dhisan tahay ixtiraam dalalka caalamka oo la ilaalinayo sharafta iyo madaxbanaanida dalkeena taasoo horseeday sida uu yiri qab weyn inaan soo celinay oo aan ka dhex muuqano dunida inteeda kale wuxuu ku faanay siyaasadiisa arrimaha dibadda inay ahayd tii ugu fiicneed uu wajaho ugu dambeyn Farmaajo khudbadiisa waxaan ku soo koobi karnaa oo dadka dhalinyarada kasbaday asagoo muujiyay ololihiisa doorashada haddaba daawadayaal qayb ka mid ah khudbadii Farmaajo haddaan idin soo gudbino oo kaga hadlayo arrimaha la xiriira doorashooyinka siyaasadda arrimaha dibadda iyo ciidanka waxa uu yiri waxay horseeday in markii labaad Soomaaliya loo doorto 4 sano gudaheeda xubinimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale madaxweyne ku xigeen aanu ka noqonay golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa annaga oo haatan u sharaxan xubinimada golaha amniga ee midowga Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhawaan sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan Security Council oo ay noogu dambeysay muddo 50 sano ka hor walaalayaal
sidaad ogsoon tihiin waxaan xoogga saarnay inaan idin ilaalino ammaanada aan idin hayno waxaanan meel marinay shuruucdii lagula dagaalami lahaa musuqmaasuqa annagoo sidoo kale xoogga saarnay shuruucda lagu horumarinayo hannaanka maaliyadeed ee dalka kaas oo abuuray daahfurnaan iyo hufnaan ay ka markhaati kaceen khubaro dhaqaale iyo hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda waxaan meel gabagaba ah soo gaarsiinay tallaabooyinkii aasaaska u ahaa ololaha deen cafiska annagoo haatan sugayna miro dhalka dadaaladaas lagu cafinayay dhammaan deymaha culaysiyey dalkeenna taasi waxay u baahan tahay inaan sii ambaqaadno qorshayaasha hawshaas lagu sii dardargelinayo iyo inaan xoojinno dadaalada lagu adkeenayo dimuqraadiyeenta dalka oo ay ugu horeyso ku dhaqanka dowlad wanaag iyo hirgelinta doorashooyinka sida ballanqaadkaygu ahaa waxaan mar kale aan ku celinayaa inaan marnaba aynan aqbali doonin in lagu takrifalo hantida danta guud iyo ammaanada ay shacabka Soomaaliyeed noo wakiisheen xaalad kasta oo aan ku sugannahay waxaan mar kale aan farayaa hay-adaha dowladda iyo mas'uuliyiinta kala duwan inay ilaaliyaan hantida danta guud maadaama lagu jiro xilli doorasho ayna tahay waxa ugu horeeya ee adduun iyo aakhiraba la iskula xisaabtamayo walaalayaal mudanayaal iyo marweyn waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada muqdisho kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen heshiiskii jahaynta doorashooyinka ee 17 Sebtembar 2021 oo ay si wada jir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hannaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas Soomaaliya maanta ma joogto xilli la isriixo la iscolaadiyo lana kala qaybsamo dhammaanteen waxaa mas'uuliyad naga saaran tahay inaan dhowrno sharafta iyo dowladnimada dalkeenna jidka kaliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hogaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka mudanayaal iyo marweyn madasha wadatashiga qaranka waxay mas'uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan horey u soo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah una fududeynaya sidii ay u dhammaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka turjumaya himilada shacabka Soomaaliyeed sidaas awgeed waxaan ku adkeenayaa madaxda madasha wadatashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkooda ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhammaystirayo doorashooyinka dalka mudanayaal iyo marweyn shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hannaanka doorashada waxaan alla ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhammeeyo jawi nabdoon naguna hago dhabaha horumarka iyo baraaraha wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهاجا فرماجة يوها صاحب يالله نحركي قطبدي حليه سو جيدية أما قطبدي حليه جيدية سو كوبين نحركي ذا هاجا
warbixinadani kale haddii aan ku socono maxkamadda militariga xukun dil ayay saaki ku fulisay askari ka mid a ciidanka dowladda kaasoo dil loo haysto maxkamadda ciidamada qalabka sida gaar ahaan qeybta 27aad ayaa saaki xilli hore dil toogasho waxay ku fulisay cabdiqaadir faarax dhaqane oo hore dil ugu geystay marxuum lagu magacaabo mawliid baashi cumar dilkan wuxuu ka dhacay degmada baled xaawo ee gobolka Sagado maxkamadda oo dhageystay kiiska dacwadda lagu soo oogay cabdiqaadir faarax ayaa ugu dambeyntii lagu riday xukunka dilka toogashada cabdiqaadir waxa uu ka mid ahaa ciidanka xooga dalka Soomaaliya halka marxuumka la dilayna uu ahaa farsamayaqaan baabuurta sameeya oo ismandhaaf kadibna rasaas uu la dhacay taasoo keentay marxuumka halkaas uu ku dhinto xeerlaaliye ku-xigeenka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle maxamed cabdiqaadir maxamed ayaa sheegay in xukunka dilka lagu fuliyay cabdiqaadir faarax dhaqane uu yahay qisaasta marxuum mawliid baashi cumar kaasoo si ula kaca uu dilay kadib labadooda markii muran soo kala dhex galay waa xukunkii labaad ama toogashadii labaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ka fuliso gobolka Sagado wax ka yar 4 gudahooda weli waxaa xiran askar kale oo ku eedeysan dhibaateynta dadka shacabka ama dadka rayidka kuwaas dileelkooda ka geysta saraakiisha military waxa ay sheegeen in ay wadi doonaan dilka loo geysanayo askarta dilka geysanaya xukunkooda inay sii socon doonto hagaag dhinaca kale mucaaradku waxay sheegeen inay diyaariyeen ciidanka badbaado qaran ee ilaalin lahaa difaaci lahaana dadka banaanbaxa dhigaya maalinta Khamiista oo toddobaadkan hal maalin kaliya ay ka hartay xubnaha midowga musharaxiinta ayaa la sheegay in dhaqaalihii ugu badnaa ay ku bixeen abaabulka ciidanka badbaado qaran labo ciidamadan la abaabulo ayaa la sheegay in tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 600 oo askari kuwaasoo loo sheegay in la kala qaybin doono ciidanka qaarkood ayaa la geyn doonaa xaafadaha ka mid ah degmooyinka Hodan Howlwadaag iyo weliba Wadajir halkaas mucaaradku ay u badan yihiin halka la sheegay waqooyiga Muqdisho ciidamo loo dhaafi doono sida degmooyinka Karaan Yaaqshiid iyo Cabdilcasiis halkaas ina mucaaradka qayb ka mid ayaa degan ilaa xogtan ka soo xigin waxay sheegeen mucaaradku ay rabaan inay diyaareen ciidamo ku dhow ilaa 1000 askari oo ciidanka badbaado qaran kuwaasoo dhaqaalahooda iyo hubkooda hadda la bixinayo asbaabta loo diyaarinay ciidamadan waxaa la sheegay in laga cabsi qabo in maalinta Khamiista kooxda farmaajo ay isku dayaan inay soo horsaag bareen ay ku sameeyaan banaanbaxa la cilaamiyay ee mucaaradku ay qabanayaan maalinta Isniinta ah xogtu waxay intaas ku dareysaa in haddii la isku dayo banaanbaxaasi la horjoogsado inay rabaan in awood military ay ku muquuniyaan tallaabadaas oo la sheegay in mucaaradku ay ku sii fikirayaan ilaa xogtan ka helaya sheegay taliyaasha ciidamada qalabka sida shalay kulan degdeg ay yeesheen ay kaga hadlayeen xaaladda la xiriirta sidii loo joojin lahaa banaanbaxaasi waxaase laga digayaa in banaanbax awood military loo adeegsado iyadoo laga baqayo inay ka dhalato xaalad hubanti la'aan ilaa xogtan aan ka helay waxay noo sheegay in mucaaradku ay ka go'an tahay in banaanbaxan awood muuqata inay ku hirgeliyaan xoguhu waxay intaasi ku darayaan in mucaaradka ay go'aan ku gaareen in la muujiyo banaanbaxa oo awoodiisa ay noqoto mid toos ah maadaama dhowr mar banaanbaxyo sidaan oo kale loogu tanaasulay farmaajo oo mucaaradku ay iska dhaafeen warbixinada qaar ayaa sheegaya in aragtida ay ka timid in ciidanka la diyaariyo xasan sheekh shariif sheekh axmed kuwaasoo ku taliyay xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ku taliyay in awood military la isticmaalo ciidamada dhaqaalaha la siiyay ee la sheegay inay qayb ka ciidankii badbaado qaran ee bishii Abriil ee diiday muddo kororsiga farmaajo kuwaasoo dib ugu noqday goobahooda hase yeeshee hadda mar kale dib loo abaabulay ilaa 1000 askari ayaa la sheegay in la diyaarinayo waxaana la qorsheynayaa inay ku baxdo lacag gaaraysa in ku dhow sida xogtan ku helino ilaa $3,000 oo la rabo in marka maalintaas banaanbax u dhacayo mushaar ahaan in loo siiyo askartaasi waagaag abaabulka banaanbaxa saaxiibyal Muqdisho si weyn ayaa loogu dareemayaa 24 saac ugu dambeeyay marka loo eego banaanbaxa abaabulkiisa iyo waliba degmooyinka gobolka Banaadir sida banaanbaxyo kaga soconaya mucaaradka iyana la sheegay dhaqaalihii ugu badnaa ay ku bixinayaan abaabulka kuwaasoo la sheegay dhaqaalaha xitaa inay gaarayaan ilaa iyo lacag badan oo dadka banaanbaxyada ka qaybgalaya inay kuwa xitaa la rabo in la soo kiciyo dadka barakacyaasha Muqdisho ku nool kuwaasoo qofkiiba la siinayo lacag gaaraysa $1 ilaa $2 maadaama la rabo dad gaaraya 500,000 dad ah sida mucaaradku ay qorsheynayaan in magaalada iskugu keenaan maalinta Khamiista hagaag wixii soo kordha wareegayna
xaalada dhalinyarada loo qado wadanka Eritrea waliba laga sabri la'yahay daawadayaal oo xaalada ayaa kasoo kordhaysa wiil kasoo goostay dhalinyarada loo qado Eritrea ayaa xog cajiib ah soo bandhigay wiilkan waxa lagu magacaabay Cabduqaadir oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa soo bandhigay xogta dhalinyaradii ku jirtay qaar kamid ah dalkaas Eritrea tababarka loo qaaday in la dilay qaarkood inay baxsadeen qaarkoodna in loo adeegsaday dagaalada Ethiopia sidoo yiri wiilkan oo u waramay wariye lagu magacaabay Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa sheegay in dhalinyaradaasi inta badan ay ku noolaayeen dalka Eritrea xaalad adag ay jireen isagoo waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay inay ka dhiidhiyaan in wiilashooda dambe loo ogolaan wadanka Eritrea in loo soo qaado. Cabduqaadir waxaa sheegay in dhalinyarada qaar la dilay kadib markii ay isku dhaceen ayaga iyo ciidamada Eritrea qiyaastii 400 oo wiil ayuu sheegay in siyaabo kala duwan ay ugu geeriyoodeen dalkaas Eritrea. dhammaan tirada dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ee la ogaaday in dalka Eritrea loo qaaday marka hore waxaa la sheegay inay gaarayeen 5,400 oo qof wuxuuna sheegay in hadda loo haysto lacago iyo cuntooyin ay isticmaaleen inta tababarka uu soconayay lacagahaas aan la bixin uu sheegay in aad u adag tahay in Soomaaliya dhalinyaradaas la keeno. 4 bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 ayuu Cabduqaadir sheegay in tababarka uu dhamaaday wixii intaas ka dambeeyay ku jireen xaalad adag oo ay adoonsi ay u eeday marka loo eego Eritrea ay adoonsanaysa askartaasi. wiilkan ayaa sheegay inuu kamid ahaa dhalinyaradii kasoo goostay xerada tababarka dalkaas Eritrea kuwaasoo qaarkood ku dhex geeriyoodeen dhalinyaro badan xerada maadaama la adoonsanayay kuwana uu sheegay in xitaa alaabta iyo maacunta lagu dhaqayay oo ay ahayd shaqada ugu yar ee la qabanayay inta kale beero ayaa lagu falinayay xoolo ayaa lagu raacayay waxayna ahayd nolol adoonsi ayuu ku jiraan 5,000 dhalinyarada ee Soomaalida dalka Eritrea tababarka lagu qaday ayuu yiri. dhammaan dadka Soomaaliyeed ayuu Cabduqaadir ugu baaqay in ay dhigaan barnaamij wax kasto ay ku dhiidhin karaan dhibaatada haysta wiilasha dhalinyarada ee lagu adoonsado dalkaas Eritrea. wuxuu sheegay in dhibka loo geystay uu qirayo oo aakhira iyo adduunyada ay kula xisaabtami doonaan farmaajo oo dibandaabyo iyo marhabaabeen ay ku sameeyeen ra'iisul wasaaraha ayuuna ka codsaday in dhalinyaradaas ee noloshooda hartay la badbaadiyo lana soo saaro. waxa uu soo sheegay in xaaladda dhalinyarada aan lagu sii fiirsan karin haddii sidaan wax ku sii socdaan. وهاجاك صاحب يا الحالات الغيرة أي هاين إن وربحنا ذا ينقصوا كوبي درنا إذا عدنا صوح نما قد بدنا يوجوا وين قد بدنا نحي سكر صاحب إذا عدنا قلبنا ما ينجح حسوسنا صباح ونكسن